maqla sheekada Maryan adeegto kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada sheeko xiiso badan oo la magac baxday adeegto qaybteedii koowaad. adeegto ama booyaaso waa qiso ku saabsan gabar markii hore ahayd reer baadiye markii xigayna magaalo soo gashay. qisadu waa nolosha gabadha mar kastaba way dulmanayd aan ahayn markii ugu dambeysay ama qaybtii dambe ee nolosheeda taasoo cid alle u baxshay nin ay mahadisayna haleeshay ugu dambayn. qaybta koowaad ee sheekada waxaa inoo akhrin doona Hilaal Cabdi Iimaan Hilaal Yoonto. waxay ahayd goor barqa dheer ahoo dabayl aad u xoog badan ciid badan la qofaysa maadaama aanay magaaladu dhisnayn wada ciid iyo qashinna tahay firada siigada boorka iyo qashinkana ay wadato markii goob maxkamad degmo ah dacwad ay ka aloosatay dacwaddaas oo ka dhex ognayd dad dhowr qaybood ah iyo gabar aan sidaa u da'weynayn xaamilo ah si u iitaal daran dhiig yaraanta caatada iyo baqdinta ka muuqataana tilmaan la yihiin dacwadda dad kala maamulaya dadkaas ood moodo ama ahaaba dad iyada u hadlayay badidoodu inkastoo uu ku jiray garyaqaan guud iyo kalkaaliyayaashiisa kuwaasoo iyaguna u dhex ahaa qolada dacwaddu ku socotee gabadha iyo kooxdeedu ku maran yihiin iyo iyaga qolyaha dacwadda loo haystaa waa niman dhowr ah oo si u arag iyo dhar xun meel gaar ahna soo fadhiya nin takhtar ah oo isagoo si walba u yaaban isna meel kaloo gaar ah soo fadhiya iyo nin kaloo isna sidoo kale indhaha taagaya oo isna meel gaar ah soo fadhiya saddex meelood oo kala gaar ah baa lagu kala hayaa mid la hadli karaana ma aysan lahayn inkastoo ay jeclaan lahaayeen inay inta isla hadlaan isla tashadaan si ay dembiga u wada tiimbadaan dhanka kale waxaa ka soo jeeda dadweyne dhegaystayaal ah iyo garyaqaanka guud iyo kalkaaliyayaashiisa maahee gabadha dacwadda wadata iyo laba ninoo iyada u mudacaya mid baa abuukaato ah midna waa gaashaanle labisan marun baa garyaqaankii ku dhawaaqay in maxkamaddu furan tahay ha la aamuso hadalka ha la daayo maanta oo ay taariikhdu tahay 24 bisha afaraad sannadda 1982 waxaa si rasmi ah maanta loo furayaa dacwad loo haysto dadka kale ah Cabdi Cali Gacal Takhtar Dacar Xasan Cawil iyo kooxda kale ee dhanka ka soo jeeda ee magacyadoodu kala yihiin Maxamuud Maygaag Dhonkaal Yuusuf Faarax iyo Abxado taasi waa dhanka dacwadda loo haysto dhanka kale waxaa dacweynaya waa gabadha dhanka ka soo jeeda ee la yiraahdo Maryan Axmed waxaana wakiil u ah una dacwo galaya abuukaate Xasan Maxamed Faarax waxaa kaloo kaalinaya gaashaanle Cabdi Cartan maxkamaddii waa furan tahay iyadoo aynu sugayno waxa qolyahan wax soo dacweeyay ay goobta keenaan garyaqaankii guud markuu hadlay qof kasta oo goobta hawshaasi u yimid markuu magaciisa sheegaba wuxuu ku amrayay inuu isa sara taago si dadweynaha wejigiisa ay u arkaan abuukaatihii oo warqado dhowr ah gacanta ku haysta ayaa meel laxoo loogu tiragalay isa soo taagay oo yiri horta maxkamadda iyo dadweynaha dhageysiga iyo dacwadda u joogaba waa la salaamayaa sida garyaqaanku u sheegay maxkamaddii haddii la furay waxaanu soo qadimaynaa dacwaddaydii aan ku soo oognay dadka sharciga soo qabtay kadib markii ay xadgudbeen waxaana ku bilaabaynaa waa sida ay u kala sahlan yihiin kuwa kooxda ahee oo iyagu noo caddaatay inay qoftan miskiinta ah dili maageen iyagoo dhacaya waxa ay sidatay laba toorrey bay sureen si ay oga harto una sii dayso wixii ay ku maageen ee ay rabeen inay ka qaataan marka garyaqaan annagoo maraggii hayna nala arag horta arrintan keena maraggiinna ama markhaatiga garyaqaankii baa yidhi waxaa soo booday afartii askariya qabatay tuugta waxayna qireen wixii jiray waxaa kaloo iyana qirtay tuugadii dembigii ay galeen ka hor inta aan kuwii kale loo gudbin waa iyagii la xukumay waxaa soo haray labadii kale midba meesha fadhiyey oo aad iyo aad u yaaban waxay yidhaahdaan bay garan la'yihiin way cabursan yihiin kuwii la xukumay xabsiga loo taxaabay maadaama ay si sahlan u qirteen intiiba biririf yar baa la qaatay cabbaar markii meelaha la taagtaagnaa baa mar dambe la isu soo noqday sidii oo kale ayaa dib meeshii waxaa isu soo taagay abuukaatihii oo awal uu yara gaabinayee
hadda isagood moodo inuu nimanka ilkaha iyo cidiyaha ku cuni rabo yidhi, garyaqaan, annagoo mar labaad bilaabayna maanta hawsheennii waxaannu soo bandhigaynaa in labada nin ee hadda dacwaddu ay ku jeeddo ay yihiin laba dembiile. aad iyo aad bay u galabsadeen in lagu qaado dembiga ay galeen oo ah horta ugu horrayn ninkan Cabdi la yidhaahdo ee kufsaday iyadoo u shaqaynaysa rimiyey. markuu kufsaday iyadu inan bay ahayd, awoodna wuu u waayey oo uu ku naagaysto, taasoo uu inta midi la qalay qofta miskiinta ah. isla maalinta ayuu cisbitaal geeyey si uu u daaweeyo. waxa uu geeyey ninkan takhtarka lagu sheegayee isna meesha soo fadhiya. dabadeed markay arkeen siday qoftani u dilan tahay way goosteen inay cisbitaalka ka saaraan oy guriga ku daaweeyaan, ileen hadday cisbitaalka u daayaan arrintu way soo shaacbaxaysaa. way is-afgarteen oo waxay wadaageen dembiga isaga ah. teeda kale kadib markii Cabdi arkay inay xaamilo tahay oo ay ceeb isaga ku tahay in la maqlo, adeegtadiisii buu rimiyey, buu iska eryey. gabadhii iyadoon cidna aqoon, ciirsina lahayn, bay galabtii dambe magaalada isku soo qaaday ilaa tuugadan hadda aad xirxirtay ay dileen. dhaawaceedii baa cisbitaal oo takhtarkii hore iyada ku dulmay joogo la geeyey. isna mar alla markii uu arkay buu wax tuhmay, wuu baqay oo is yidhi malaha inay dhimataa rooneede faraha ka qaad, waxba ha daaweyn. run ahaantii way dhiman lahayd hadday hesheen oday meesha ka shaqaynayey ee fahmay iskuuladka takhtarka. marka qoftani sidaa ayaa horta loo waxyeeleeyey. anoo su'aal kale ii harsan tahay warbixintii wayga intaa. wax markhaati ah ma haysaa? garyaqaankii baa yidhi, waxaannu haynaa iyada iyo kalkaaliyihii badbaadiyey. abukaatihii baa yidhi, gartay, laakiin waxaa la doonayaa inaan dembi baaris buuxdaa helo, maxaa yeelay sida muuqata arrintani mid sahlan ma aha. iyaguna waa inay isdifaacaan, waxay qabaanna la helaa. midda kale idin garanaye maxaad gabadha isu tihiin? aaway dadkeedii? arrintani waa in sal iyo baar loo baaraa, lasoo lafaguraa, gunteeda lasoo taabtaa oo runteeda la helaa, dabadeedna siday tahay loogu tilaabsadaa. garyaqaankii baa intaa yidhi, waxba kama qabno, annagayba dan noo tahay tani. waxaynu heli doonnaa warar kaloo naga sii dahsoon maanta. taadse nagu tidhi maxaad gabadha isu tihiin? waxaan kaa leeyahay wax aan aadminnimo ahayn oo aan ka leennahay ma jirto, waxna iskuma nihin. inay miskiin la dulmay tahay unbaan aragnay, dabadeedna annagaa hawshaasi isu dirnay. gaashaanlihii baa inta istaagay yidhi, waxaan filayaa in maxkamaddii aan dib u dhignay ilaa la soo helo warbixinno iyo dembi baaritaan kan ka tafaftiran, si qofkii dembiga lahaa loogu qaado dembigiisa isagoon isagana lagu xadgudbin. garyaqaankii baa intuu miiska 2-3 jeer tumay buu istaag u hanqaday, hadalkaana ka sii tegay. maxkamaddii baa dib u dhacday ilaa waqti. su'aasha meesha tiilna waxay ahayd maxaa dhab ah, sidee baase wax u dhaceen? sheekadii baa dib u bilaabatay si raadkeeda dhabta ah loo soo helo, loogana baaraandego ilaa dhammaadkeeda la tago. dhegaystayaal, qaybtii koowaad ee sheekadii Maryan Adeegto waa naga inta.